wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug istayna waxaa kulan looga arinsanayo qaabkii loo soo dhisi lahaa golaha deegaanka ee magaalada Caabudwaaq ay ugu qabteen magaaladaasi qaar kamid ah waxgaradka ku nool deegaanadaasi sida warbixinta warka uu nagu faahfaahinayo wariyaheena Saciid Cabdi Maxamed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose ee dawladda goboleedka Galmudug mudane Maxamed Xayir Nuur oo ay wehelinayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa ka qayb galay degmada Caabudwaaq ee waqooyiga gobolka Galgaduud kulan iskugu jiro wacyigelinta iyo u diyaar garowga dhismaha golaha deegaanka degmada Caabudwaaq gudoomiyaha degmada Caabudwaaq mudane Mahad Cumar oo daahfuray kulanka ayaa ka hadlay ujeedada laga leeyahay dhismaha golaha deegaanka waxaana ku soo dhaweeyay ugaas Axmed Barre Cali oo asaguna goobta ka hadlay waxaanu leenahay anagoo ah hadda maamulkii matalayay bulshada deegaanka matalayay waxaanu soo dhaweynaynaa nidaam annaga kan hoggaanka kan ay ka fiican u yimaado si deegaanka iyo dalku horumar u gaaro waxaanu rabnaa marka in anagu u tanasulayna in bulshadu ay horumarto oo deegaanku heerka uu joogo heer ka fiican tago inay bulshadu nala garato marka waxaan leeyahay walaalayaal waxa inoo hagaagsan iyo waxa inoo fiican mustaqbalkeena aynu si dhammaystiran uga farabuuxsano sida uu yahana aanu qaadano lagu soo dhaweynaya kulley ugaaska ugaas Axmed ku soo dhawow waxaan soo dhaweynaynaa daafurka oo sameynta maamul sameynta Caabudwaaq daafurkeeda iyo maamul sameynteeda haddii aanu nahay deegaanka Caabudwaaq waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo walaalnimo waana wixii aanu doonaynay ama aanu u baahnayn xubno ka kala socday xaafadaha kala duwan ee degmada aqoon-yahano iyo golaha guurtiga ee qaybta ka ah kulanka looga tashanaya dhismaha golaha deegaanka degmada Caabudwaaq ayaa su'aalo ku aadan habdhiska golaha deegaanka waxa lagu weydiiyay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda goboleedka Galmudug qaabka dhismeedka sida uu yahay oo shuruucduna tilmaamayso ama 60kii ha ahaato kacaan oran ma kacaanku nomination buu ahaa dawladtoorigu ahaa asaga soo magacaabi jiray lagama daba hadli jirin in marka dadka loo wacyigeliyo marka hore shirarka la badiyo la iska dhaadhiciyo baa loo baahan yahay golaha deegaanka wuxuu leeyahay tirsi wuxuu leeyahay dableeshi tirsi waxa weeye 19 waa noqdaa 17 waa noqdaa 20 waa noqdaa 27 iyo 29 waa noqdaa waxaan rabnaa degmadaan ma la eka dadka sida Buntland oo kale garow oo kale weeye inta aan leenahay inaan su'aalo oo population-ka u dhan yahay haduu yar yahay waxaan qabnaa sida garow oo kale in 28 ka sii Dr. Yaasin ku soo dhawaad taliyaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose mudane Yaasiin Cabdi Jaamac ayaa jawaab ka bixiyay su'aalaha ay qabaan bulshadii kulanka ka qayb gashay golaha deegaanka marka waa dad xibno ku imaaday doorasho waa dad ay degmadaanu anta isa soo sharaxeen ay santuuq ugu codeysay oo doorasho dadweyne ku imaaday labo ay degmadaanu la xisaabtamayso haday wax qaldaan iyo haday wax saxbaan ay kula xisaabtamayso wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose mudane Maxamed Xayir Nuur oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay dhismaha golaha deegaanku ay ka horeyso wacyigelinta iyo fahansiinta bulshada muhiimada ay leeyihiin golaha deegaanka waa baarlamaankii degmadan ay lahaan lahayd oo ka shaqeyn lahaa gudoomiyuhu ayadu ka soo dhaxbaxaya ku xigeenku asoo ka soo dhaxbaxaya ayada ayaa iska dooran doonta waxa loo baahan yahay marka in arintaas laga farabuuxsado say tahayna looga farabuuxsado hadda arinta aan daafurano waa ayada laakiin waxa ka horeeya arinta maanta oo dhan laga hadlayo oo wacyigelinta oo in la fahmo arinta Saciid Cabdi Maxamed wararka TV-ga caalamiga ee Kalsan Caabudwaaq